ونتوكل عليه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيده من خلقه وخيرته أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي baa سubحaanaه وataعaalى mahad iskale ilaahayna wuu kulmiyey beyd buyuud ilaahay subxaanaه وataعaalى ka mid waxaan insha allahu tacaala wax ka taaban doonaa hadduu ilaah yihaahdo wuxuu ilaahay naga karsiiyey subxaanaه وataعaalى bifadlihi wamanihi calayna ayaan wax ka taaban doonaa carabka iyo dhibaatada uu leeyahay iyo carabka iyo dhinaca wanaagga haddii loo isticmaalo iyo carabka iyo khayrka iyo dikriga ilaahay subxaanaه وataعaalى marka dhinac marka laga eego carabku waa silaax dulxadayn waa hub laba af leh dhinaca khayrkana waa loo adeegsadaa dhinaca shartana waa loo adeegsan karaa labadaba marka maadaama uu yahay hub laba af leh oo labada dhinacba wax jarayo qofka muslimka ah waxaa weeyaan inuu ku baraarugo marka naftayda ayaan ugu talagalay marka koobaad marka labaadna dadka walaalahay ay maqlayaan inaan xasuusiyo dhibaatada carabka uu leeyahay ikhwaani ilaahay subxaanaه wataعaalى ayaa mahad iskale ilaahaygii bini aadam ka abuuray laqad khalaqna اlinsaana fi axsani taqwiim uu ilaahay leeyahay insaanku waan abuurnay yacni khalqi makhluuq la abuuro nooc ugu wanaagsan ayuu ilaahay subxaanaه wataعaalى abuuray ilaahay wuxuu siiyey laba indhood wuxuu siiyey san ay ka neefsadaan wuxuu siiyey carab wahadaynaahu najdayn walisaanan washafatayn buu ley ilahay subxana wataعaalى waxaan siinay carab iyo laba bishimood marka carabku waxa weeye halis waaye hadduu qofka dhinaca khayrka ah uu u adeegsan waayo walihaada baa nabiga salى الlaه عalيه waslm xadiiskii abu da-ud uu warinayay waxa uu yihi yaa macshara man aamana bilisaanihi walam yufdi اliimaanu ilىa qalbihi laa tatabicuu cawraat اlmuslimiin dadka ilaahay ka rumeeyey carabkow oo qalbigooda uusan gelin iimaanka dadka muslimiinta ee wuxuu leeyahy nabiga salى الlaه alay waslm ha raacraacina cawradooda ha raacraacinaya ceebahooda qofkii raacraaca qofka ceebta walaalkii ilaahayna tiis ayuu raacraacayaa qofkuu ilaahay ceebtiisana raacana ilaahay subxaanaه wataعaalى wuu ceebeynayaa hadduu gurigiisa ku dhex jira xataa marka carabku halis weeye wuu dhibaato badan yahay waa dhaalim weeye wixii qalbiga uu kaahsado oo qalbiga uu qariyo xataa waxa ku dhawaaqo inta badan ee soo saara carabka wey marka ikhwaani qofka wax uu ka halaagsamo wax uu ku gubto adduuniya aakhiradiisaba carabkaas waay marka xadiiskaas u fiiri cajiib waad garanaysaan xadiiskii mucaadi ibnu jabalin oo nabiga calayhi الsalaatu wasalaam uu warinaya imaamu muslim iyo bukhaari oo arbiciinka ku yaalay ayaa mucaadi ibnu jabal wuxuu leeyay waxaa rasuulka ilaahay waxaad ii sheegtaa camal jannada igeliya naartana iga fogeeyo markaasuu nabiga salى الlaه alay slm wuxuu waxay weydiisay arrin weyn wayna u fududahay cidda ilaahay subxaanaه wataعaalى uu u fududeeyo ilaahay baad caabudeysaa subxaanaه wataعaalى waxba la shariig yeeli maysid salaada ayaad oogeysaa zakada ayaad bixineysaa ramadaanka ayaad soomeysaa xajka ayaad gudaneysaa nabiga calayh الsalaatu wasalaam markaati ayuu u tiriyey markaas baa nabiga salى الlaه alay slam wuxuu yihi miyaanan kuu sheegaynin albaabada laga gala khayrka mucaadow soonku waxa weeyaan waa gaashaan weeye sadaqaduna waxay damisaa khatiicada gafka ayay damisaa sida biyaha ay dabka u damiyaan oo kale lanna qofka markuu ikhwaani uu sadaqo badan yahay ilaahay subxaanaه wataعaalى wuxuu ku asturayaa wax badan hadduu qofka bakiil yahay haddana uu xam badan yahay waa laba dhibaato wey laakiin haddii qofkii deeqsi uu yahay oo dadkii masaakiintii iyo fuqaradii ilaahay subxaanaه wataعaalى gacantiisa uu wuxuu wax ka siinayo ilaahay wuxuu ku asturayaa khatiicadiisa iyo dembigiisaba waxaa lagu daminayaa waxa weeyaan waa sadaqadaas wey
wuxuu ka sheekayey nabiga sala allahu alay wasalam qofka habeenkiis taagaya salaada ee fii jawfi leyli habeenka tukanayo markaasuu wuxuu akhriyay nabiga sala allah alay slam tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa طamcan dadka mu'miniinta ilaahay markuu sifaynayay wuxuu ku tilmaamay inay dhinacyadooda ka ilaaliyaan hurdada habeenkii tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa طamcan ilaahay bay subxaanahu watacaala baryayaan iyagoo ilaahay rajaynaya kana cabsanaya markaasaa nabiga sala اla alay slam sii waday hadalka wuxuu yihi miyaanan kuu sheegin arrinkaa waxa uu madax ah iyo tiirashiisa iyo meesha ugu sareyso markaasaa ina yihi nacam ya rasuul allah wuxuu yihi waxa ugu sareeya arrinkaas oo waxa weeyaan asal u waxa waaye waa islaamnimadka tiirashiisana waa salaada leanna salaada waad ogtihiin ayadana qofka markuu muslimo oo shahaadateynka uu qira waxa ugu muhiimsan qofka muslimka uu la imaano oo qiyaamaha marka la tago acmaashiisa hadday hagaagto salaada acmaasha kale hagaagaysana salaada weye waxaa yihi nacam rasuulka ilaahay u ii sheeg wuxuu yihi marka salaada tiirashiisana salaada weeye meesha ugu sareyso la taabtana aljihaadu fi sabiili اllahi waay wadiinta ilaahay subxaanaه watacaala oo la difaaco xaqa iyo baailka xaqana lagu difaaco baailkana laga ilaaliyo wuxuu yihi nabiga sala اla alay slam kuu sheegaa mucaadow arrinkaasoo dhan wax soo urursanayo arrinkii hadda aan kaaga sheekeeyo o dhan wax kulminaya makuu sheegaa markaasaa i nacam ya nabiy allahi markaasuu carabkiisa qabtay nabiga sal la alay slm wuxuu yihi kan ka adkaaw khud calayka haada kufa calayka haada kan iska ilaali iska qabo macnaha markaas baan waxaan ihi rasuulka ilaahay o mana loo qabanaya waxaan ku hadlayno markaasuu hooyadaa kuwaysay mucaadow oo dadka miyaa loogu tuuraa afgambooti naarta ilaa carabkooda waxay galabsadeen maahne idan marka carabka dhibaato uu keensanin oo jiraysa ma jirto waay dhibaato uu keensan isaga oo jiraysa ma jirto carabku marka ikhwaani faman zaraca khayra min qowli wacamali xasad alkaraama qofkii marka beerto qowl hadal iyo camal wuxuu qofkaasi ila waman zaraca xasada qofkii wax beer abuuro tabco akhiiran wuu goostaa carabkaada marka haddaa khayr iyo wanaag ku hadashona ilaahay subxaanahu watacaala wuu kaa abaalmarinayaa wuuna ku karaameynaya haddii aad ku abuurto shar ficil iyo qowl miduu doono ha ahaadee waad ka shalaynaysaa fi dunya iyo alaakhira labadaba qiyaamaha adduunyada iyo aakhirada waa ka shalaynaysaa adduunyadana qofkii way kuu qabanayaan hadalkii oo hadalkii aad tiri laguu cafini maayo waxaa lagu odhanayaa hebelow ereygaas baa tiri ama cadaawad baa lagugu qaadaya iyo xiqdi iyo xaasidnimo iyo dhibaata lagugu abuurayaa aakhare markii la tagana kama badbaaday sidoo waxa weeyaan dhibaatadiisa ayuu leeyahay waxaa ka muuqata marka daahiru xadiidka calى ana akar ma yadkulu الnaas bihi الnaar annutqa bialsinatihim dadka waxa intooda badan naarta geliyo waxa waye waxay ku hadleen carabkooda waxa dadka lagu xanto waa isaga waxa dadka lagu qanina waa isaga waxa sharta lagu sheego waa isaga wax allaali wixii xumaanoo afka uu soo qabto o dhan isaga lagu sheegaa wuxuu warinayaa imaamu axmed iyo tirmidi waxay warinayaan nabiga sal اla alay slam inuu yihi waxa ugu badan ee dadka naarta geliyo waa famka afka iyo waxa weeyaan iyo farjiga afkana carabkiibaa ku yaalo oo qofka bini aadamka uu hadlaya markaad hadasha marka haddaadan miisaan saarin shalayto iyo dhibaato ayaa maaragtay ka dambeynayso xadiis uu warinaya sahl ibni sacd saacidi ayaa nabiga sala اla alay slam wuxuu leeya yaa ii damaanad qaadaya inta udhexayso labadiisaan yacni u fiiri garkiisa maa bayna lixyatayh iyo labadiisa lagood dhexdooda yaa ii ballan qaadayo oon janno u ballan qaadaa adigu marka afkaaga waxa ku dhex jira waa carabka waxa nuuxnuuxsanaya ee raba dadka muslimiinta inuu qaniinana waa carabka waxa dhibaatada keensanayana waa carabka iyo afkaaga ayaa qofka muslimka la rabaa inuu ogaado yaa ii damaanad qaadaya buu yihi nabiga sal ly slm labadaas iyo labada lagooda udhexayso jilbaha iyo xudunta waa farjigii waay oo anigana aan u damaanad qaadaa jannada ibnu xajar wuxuu leeyahay damaanadu waxa weeyaan qofka inuu ka taga macsiyada yani nabiga alayh isalaatu wasalaam markuu leeya ii damaanad qaadayo yaa ka tagayo oo ka fuqayaa loola jeedaa waxaas dhibaatada geysanaya oo dhan waxaa kaleeto loola jeedaa qofka inuu ka aamuso waxa aan asaga khusaynin waxaan asaga khusaynina inuu ka aamuso
wuxuu leeyahy ibnu bataal xadiisku wuxuu ku tusinayaa balada qofka ugu weyn ee dunyada asiibta inuu yahay carabkiisa iyo farjigiisa, carabkiisa iyo farjigiisa. bal u fiiri, qof aamusan oo akhlaaq wanaagsan oon hadlaynin, oo qur-aankiisa akhrisanayo, oo adkaartiisa akhrisanayo, oo dadka muslimiinta ee ka nabadgelayo, qofkaas waa adag tahay in wax lagu qabsado, waa adag tahay in wax loo soo raacdo, leanna carabkiisa ayaa dadka ka nabadgaleen. waxaa la wariyaa xasanulbisri baa lagu yihi, baa la yihi xasanulbisriow hebel baa ku xantay baa lagu yihi, ta loo tegey. markaasuu wuxuu sameeyey, wuxuu u diray marka, wuxuu u diray hadiyad buu u diray ninkii xantay. markaasuu wuxuu yihi waxaa isoo gaartay inaad iisoo hadiyeysay wanaagaada, marka wuxuu yihi waxaan damcay inaan kugu abaalgudo, intaasaan awoodi karaaye iga qaada macnaha. yacni wuxuu oola jeedaa qofka markii uu qofka, waa u imaan doonaa, uu xanto dhibaatadiisii oo dhan iyo dembigiisii oo dhan baad qaadaysaa. marka wuxuu yihi waxaad aniga ii samaysay hadiye, ixsaan baad ii samaysay, marka adduunyada inaan kugu abaalgudo waay. oo xadiiskii mufliska ahay ayaa u daliilaya, nabiga sala allah alay slam uu yihi ma garanaysaan muflis? markaasay saxaabada dhaheen waa cid aan haysanin dirham iyo dinaar toona, yacni lacag aan haysanin. qofkaan maanta dollar ugu jirin lacagti jeebkiisa ka warrama, waa mushkilo wey. sheekh caayid alqarani cajaladiisa amriika alatii ra-aytuhaa baa wuxuu ku leeyahay maraykanka maruu ziyaartay dacwo ahaan u tageen buu ka sheekeynaya, wuxuu yihi idaa lam yakun fii jaybika dolaaru asaabaka alhalaaku waddamaaru, hadduusan dollar jeebka kugu jirin buu yihi dhibaato iyo damaar baa kugu dhacayo. waad aragteenoo dadka meelaha ku dhacdhacayo in waxba haysan, cid iscaawine iyo qofkaan u gargaaraya isxaani midna ma jirto. wuxuu yihi nabiga sala allah alay slam muflis ma garanaysaan? markaasay dhaheen waa qofkaan dinaar iyo dirham toona haysanin iyo alaab. wuxuu yihi maya, qiyaamaha qof la keenaya way ummadayda ka mid ah, qofkaas wuxuu la imaanayaa salaad badan iyo zaka iyo soon, markaasuu wuxuu caayay midkan, wuxuu garaacay midkan, wuxuu xoolihiisa xaqdarro ku cunay qofkan, soo ma jeed? markaasaa looga qaadayaa midkan xasanaadkiisii, midkan kalena xasanaadkiisaa looga qaadayaa. markii xasanaadkii ka dhamaataa, marka haddana waxaa lagu tuurayaa dadka xasanaadkooda inta lasoo qaado ayaa sayi-aadkaasa lagu tuuraya, naarta lagu tuuraya. marka dhibaatadaas ayuu leeyahay qofkii qofka muslimka uu ka badbaadi waayo. waa ninka shaacirka wakiilaha, ya-baa fuaadi an yamiila ila aladaa xub ladiyati min tibaaci alcaqrabi. qalbigaygu wuu ii diidayaa, ilaan qalbigu waxa uu qarinayo iyo waxa uu kaydinayo. kelimateynka ikhwaani marka lagu dhawaaqayo shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxameda rasul, niyada loogama dhawaaqo. qofku waa inuu ku dhawaaqaa shahaadateynka, waa in shahaadateynka uu ku dhawaaqaa iyada oo nudqi ah oo la fahmaya qofkan inuu islaami, soo maaha. marka wuxuu yaabaa fuaadi an yamiila ila aladaa xub ladiyati min tibaaci alcaqrabi. qalbigaygu wuu diidayaa inuu u iisha xagga iyo dhibka. dhibka waxa jecel dadka inuu dhibo waa caqrabka, waxa way hangarlaha, soo mayd arag qofka inuu qaniinuu jecel yahay. haddaad salka dhulka dhigto, meelahan hangarla kuma arkina umalaynaa, salka dhulka haddaad dhigto waa arta waddankeeno, ama habeenkii gudcu yar uu galo, salka saasaa dhulka u dhigtaba dhab buu ku siini. isaga min abaa'ici waxaa ka mid ah min abaaci alcaqrabi in dadka inuu qaniino. marka lisaanka carabka waa nicmo ilaahay oo nicmooyinka ilaahay subxaanahu watacaala ka mid ah. waa carab ahaan marka la sifaynayo, carabka marka la tilmaamayo wuu yar yahay ikhwaani, waadna aragtay intuu leegyahay, hadda wuu yar yahay. waana waxa qofka uu ku caddaado islaamnimadkiisa iyo gaalnimadkiisa uu ku caddeeya carabka wey. aad buu marka carabka waa aalo weye, waa shay hadlaya wey, waa shay xawaa-ijta qofka lagu macnaha uu ku guto, waa shay qofka baliiqa ah ee gabyaya ama macnaha ee gaarsiinaya dadka arrimaha uu rabo uu ku gaarsiiye carabka waay. marka carabku marka sidaasuu asaga uu ka samaysan yahay. bal iska badaaha ina jawaarix alinsaani kulaha murtabidatu bilisaan. acmaasha qofka jirkii intiisa kaleo dhanba waxay ku xiran tahay carabkiisay ku xiran tahay. hadduu toosnaado marka sida xadiiska uu warinayo imaamu tirmidi, albanina uu maarata xasaninayo, waxasanahu اlalbani, ida asbaxa ibn aadam faina alacdaءa kulaha tukafiru lisaan ay takhdacu lahu. insaanku markuu waagu u baryo, xibnihiisa oo dhan waxay hoos imaanayaan carabkiisa, markaasay waxay odhanayaan ilaahay nooga cabso,
haddii aad toosnaatana waa toosnaanaynaa, haddaad qalloocatana waa qalloocanaynaa. u fiiri waaga markuu baryay kugu soo kalahaya. marka carabka haddii marka xitaa shaydaanka waxaa la rabaa qofka marka uu ibnu cabaas leeyahay haddii uu shaydaanka kuu imaado oo akhiiran suu su-aalaha kuu weydiinayo adigana marka dambe uu ku dhaho man khaaliqu rabbak, yaa abuuray ilaahaygaaga, waxaad dhahdaa huwa alwalu walaakhiru waldaahiru walbaatin. marka aad leedahay qalbigaaga waxaa la rabaa shaydaanka inaad la dagaalanto, carabkana inaad ku hadasho aad kala macnaha aad haddii qofka waswaas uu ka qabo shaydaan qalbiga uu kaga jiro oo uu ku dhawaaqi waayo carabkii, waxay ku tusinaysaa iimaankiisa iyo qawigiisa inta uu la egyahay. laakiin waxa u run sheegaya u been sheegayana waa carabka marka wuxuu u baahan yahay xakameyn aada iyo aad u badan ayuu u baahan yahay. xadiis kaleeto ayaa nabiga sala allahu alay slam waxa uu leeyahay abu hureyra uu warinayo, addoonku wuxuu ku hadlaa kelimad ilaahay raalli gelinayso. isaga markaa oolama jeedo kelimad buu ilaahay raalli gelina buu addoonku ku dhawaaqayaa. ilaahay subxaanahu watacaala wuu ku koryeelaya addoonkaas kelimada uu ku dhawaaqay daraaddeed. addoonka kelimadna wuu ku dhawaaqayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu caragelinayso, isagoon markaa dan u aabayeelaynin. kelimadaa uu ku dhawaaqay oo ilaahay subxaanahu watacaala caragelinayso oo markaa uusan ku baraarugsanayna, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu gelinayaa jahanamada, naarta ayaa la gelinayaa. marka وmin huna jaءa التأkiid الcadiimu calى xifdi lisaani, waxaa imaaday marka in qofka muslimka uu ku baraarugo carabkiisa inuu xifdiyo ilaashado, waa muhim jida. amhilo aada iyo aada u badan baa dadka salafka laga soo wariyey arintaa ku saabsan. abubakr صadiq baa laga sheegay carabkiisa intuu qabtay ayuu wuxuu yihi hada aladii awradani اlmawaarid, carabkiisaan u qabtay. markaasuu wuxuu yihi kan waxa iga tuuray meelaha mawaaridda ee kan wey. bal ka waran abubakr صadiq oo nabiga sal اlahu alay slm saaxiib lahay, thaniya thnayni uu ilaahay ku tilmaamay id humaa fi lgaari, qur-aanka lagu sheegay. hadduu carabkiisa ka cabaadayo annaga xaggeen joognaa ikhwaani. wuxuu leeyahy ibnu burayda waxaan arkay ibnu cabaas oo carabkiisa qabtay, isagoo dhahayabaa arkay buu yihi carabkiisa intuu soo jiiday, hoogaagee khayr ku hadal, waad haniimaysanaysaa, waad liibaanaysaa, ama iska aamusoo xumaan ka aamus, waa nabadgelaysaahe, waxaadna ogaataa inaad ka shallayn doonto wax badanaad ku hadasho. markaasaa lagu yidhi abalcabaasow maxaad arrinkaa u leedahay? wuxuu yihi waxaa soo gaaray oon maqlay insaanku wax kaga daran carabkiisa inaysan jirin qiyaamaha marka la gaaro. haddii saxaabada marka ridwaan ullahi calayhim ay saa uga dadaalayaan carabkoodii, maxaad umalaynaysaa dadkanagan? ibnu mascuudna waxaa laga soo wariyey inuu ilaahay subxaanahu watacaala ku dhaarto yihi wallahi aladii laa ilaaha illaa hu, ilaahay baan ku dhaartay buu yihi qof kaga haboon ma jirto inuu xabsi geliyo carabkiisa. yacni wax la xabiso oo xabsi la geliyo, waad artay insaanka bini aadamka xabsi haddii lagu geliyo lagu dhaha kama baxaysa gurigan, waa dhibaato wey. marka wax uga haboon carabka in la geliyo xabsi ma jiro waay, macnaha ma jiro ayay dadka salafka leeyihiin. waxaa la leeyahay hadalku aad ku hadlayso hadduu markaasoo fakado carabkaada mar hadduu kasoo fakado, adigaa waxaad u noqonaysaa asiir, mid la qafaalay, macnaha aduu kugu soo laabanaya, aduu ku dilayaa, aduu dhibaato kuu geysanaya carabka hadalkaada kaa baxay. lanna cali bn abi aalib baa la yihi baa waxaa la weydiiyey, baa lagu yihi qof muslima walaalkiisa qof kalenta dhibaatada u geysay ayaa wax laga weydiiyey. wuxuu yihi marka qofka adiga dhibaatada waa u geysan kartaa, waadna raalli garayn kartaa, laakiin inuu raalli garoobi in kale adiga ma ogaan kartid, lan qofkii ku xihan tahay qalbigiisi iyo niyadiisii. laakiin walaalkaa ama gabadha walaasha muslimadda ee marka koobaad carabkaada waa ka ilaalin kartaa, waa hayn kartaa. laakiin mar haddaad sii dayso oo carabkaada ka dhigtay mid maftuuxa oo dadka muslimiinta ee lagu qaniino, halis wey. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay maa yalfidu min qowli ila ladayhi raqiibun catiid. hadal kuma dhawaaqa qofka, lafdi kama soo fakado, ilaa ladayhi arrinkaa hadday dhacdo raqiibun catiidun, laba malaga garbaha kaa saaran. aakhire marka la tagana kitaabkaada lagu dhiibayaa, laa yugaadiru sagiirata walaa kabiirata ilaa axsaaha, kitaabkaasaad marka ka akhrisanaysaa. haddii aad rabto marka qalbigaada inaad tijaabiso ood fiiriso, carabkaada inaad xakamayso wey.
carabkaada inaad xakamayso wey. wuxuu leeyahay yaxya ibnu mucaadin quluubta waxay la mid tahay waa dheri digsi weyn oo dab la saaro kale, carabkana wuxuu u yahay buu leeyahay kii la darayay wey. haddii marka carabkii la darayay aada xakamayso, dheriga karkaristiisa waxba tari mayso, guduhu uu ka koraya, wuu hurayaa macnaha. marka adiga ayaa lagaa rabaa inaad dhinaca macaanka iyo wanaagga waquluu linaasi xusnan u fid. ilahay wuxuu leeyahy dadka hadal macaan kula hadlo, hadal fiican u dhaho. marka carabkaada waxaa la rabaa dadka walaalaha ee muslimiinta ah inay ka nabadgalaan, in qof kasto oo muslima uu carabkeena ka badbaado. wa min alcajab waxyaalaha lala yaabo waxaa ka mid ikhwaani ana alinsaana yahuunu cala ataxafudi walixtiraazi min akli alxaraami wاdulmi wالzina wالsariqa. qofka muslimka in badan oo maanta inaga mida waxaan ku dadaalnaa xalaasha inaan cunno, xaaraanta ka dheerano. ribada waa iska ilaalinaa inta badan, dulmiga waa la iska ilaaliyaa, zinada qofku ilaahay maaratay u dhowro wuu iska ilaaliyaa iyo xumaantadeeda, sariqada iyo maaratay xaditaanka waa la iska ilaaliyaa, khamriga shurbiga waa la iska ilaaliyaa in la cabo, waxyaalaha eegista xaaraanta o dhan waa la iska ilaaliyaa. laakiin waxaa mushkilo eh oon la xakamayn karin cadkaa yarka eh ee intaa aragtay uu la eg yahay ee hadlaya ee maanta o dhan aan aamusaynin, kaasaa wuxuu u baahan yahay in la xakamayo, liijaan la geliyo wey. qofka marka ehlu khayrka u wanaagsan oo ilaahay subxaana wa tacaala tawfiiqda iyo khayrka uu la damca u fiiri, man kaana yu'min biاllahi walyawmi اlaakhir falyaqul khayra aw liyasmut. ilaahay ee qiyaamaha rumeeyey ha iska aamuso ama khayra ku hadlaa layidhi. haddaa iska aamusnaato asamtu dahabun, qof kasta iyo ummad kastaba luqad walbaba isku ammaanan hebel wuu aamusnaan badan yahay, wuu akhlaaq badan yahay. laakiin akhlaaqda uu badan yahay iyo aamusnaanta uu badan yahay carabkii isuu xiray waay. wuu awoodi karay sida dadka caytamo inuu caytamo, inuu dhibaato geyso, inuu dad ku xanto, inuu laba qof oo muslimiin isku diro, inuu maxaqiila waqaala ka sheekeeyo, laakiin carabkiisa uu hantay ayaa ilaahi subxaana wa tacaala khayrka waafajiyey. marka aafaad buu leeyahay. waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan kala qaadno oon ka sheekeyno aafaadka dhibaatada carabka uu leeyahay caaway. habeen dambena hadduu ilaahayna gaarsiiyo subxaana wa tacala inaan ka sheekeyno amsik caleyka lisaanaka, war qof iyo muslima carabkaada hayso. labadaasa u kala qaadayna. marka qeybtan hore marka qofka muslimka waxaa la rabaa aafada koobaad inuu ka digtoonaado ilaahay subxaana wa tacaala inuu waxba la wadaajin carabkaada, maadaama muslim aad tahay, ehlu tawxiid aad tahay, ilaahay koonkan uu ku keenay oo ilahay yihi wamaa khalaqtu ljina walinsa ilaa liyacbuduun, umaanan abuurin insi iyo jini ilaa inay caabudaan maahane, oo koonkan ilaahay subxaana wa tacaala qadarkiisa aad ku imaatay inaad marka carabkaada xifso. waa muhiim, arrinta koobaad waay. wuxuu leeyahay ibn rajab, qaala alxaafid ibn rajab faina macsiyata nutqi, inaad ku hadasho macsiyo waxay soo gelaysaa ashirku wahuwa acdamu dunuubi, lianna ilaahay wuxuu raalli ka ahin haddaad ku hadasho oo carabkaadi aad kaga dhawaaqdo halis wey. ama ataqawul cala allahi bigayri cilmin, ilaahay subxaana wa tacaala inaad maaragtay ku dhawaaqdo wax aadan markaa aqoon u lahayn, waa iftiraac cala allahi iyadana soo gelaysaa. in alqowla cala allahi bigayri cilmin, oo qofka uu ku dhawaaqo waa dunuubta midka ugu daran waay, muduubta midka ugu daran wey. wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun, carabkaada inaad ilaahay subxaana wa tacaala ka haysato, ilaahay subxaana wa tacaala nabigiisa iyo adiladiisa iyo axaadiistiisa maaratay aad ku ixtiraamto, saasaa la doonayaa. oodan ilaahayna ku iftiroonin, nabigana ka been sheegin calayh isalaatu wasalaam. qofka muslimka inuu ilaaliyo waay. qofka muftiga ee iftoonayana waa inuu ilaaliyo aadaabtii shareecada islaamka, ousan dhexgelin waxyaalaha aana markaa isaga maalayacnigiisa ah, maalayacniga weyaan, oo ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhawaada carabkan ilaahay uu siiyey, oo khaaliqa ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku cibaadeysto. waxaa ka mid ah waxyaalaha aafaadka carabka ibtileeyo kiibada, xantaa ka mid a ikhwaani. xanta keligeeda waxay u baahan tahay subxaana allah, yani wax aan qof kastoo inaga mid uu ka dharagsan yahay, waa un min baab tadkira inaan isxasuusino keliya. nacam, inaha algiibatu ya cabdallah, waxaana weeyaan kiibadu waxaa la dhahaa inaad walaalkaa ku sheegto wax uusan jeclaysan, ama ha ku hor fadhiyo ama ha maqnaado. xadiiskaas insha allahu tacala waa akri doonaa. waxaana uu daliila ilaahi subxaana wa tacaala uu yihi walaa yaktab bacdukum bacda ayuxibu axadukum an yaأkula laxma akhiihi mayta fakarihtumuuhu.
yaa ayuha aladiina aamanuu ilaahay subxaana watacaala munaadaha u fiiri wuxuu u dhawaaqayaa dadka ilaahay rumeeyey iyo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ka fogaada in badan oo ka mid a malaha qaar ka mid ilaahay wuxuu leeyahay waa dembi. maxaad umalayn anaga maanta waxay ila tahay waxaan u malaynayaa ma huba hebel inuu saas yahay, waxaan u malaynayaa hebla inay saas aaminsan tahay, waxaan u malaynayaa ina bacda danni itmu malaha waxyaalaha carabka asaga naftirkiisa ayay ka mid tahay dadka bini aadamka ee uusan ka baxsanin malaha wey. ina bacda danni malaha qaar buu leeyahy ilahi subxana wa tacala itmu walaa tajasasuu walaa yaktab bacdukum bacdan barkiin barka kale yuusan xamanin. ayuxibu axadukum qofkiin ma jecel yahay buu ilahay leeyahay an yaakula laxma akhiihi hilibka walaalkii inuu cuno maytan oo dhintay fakarihtumuuhu waa diidan. ee ilaahay ka baqa, ilaahay subxaana watacaala toobada isagaa aqbale. maxaad u malaynay marka iyadoo lagu yihi qofkii walaalkaa ahay oo dhintay oo meydka ahay hilibkiisii oo lagu keenay oo walaalkaa ay hod garanayso miyaad cuni kartaa? waa maya, ilaahay waa diidan buu yihi. marka xantu halis wey ikhwaane. saxaabada uu weydiiyey nabiga sal alla alay slam wuxuu ku yihi ma garanaysaan xanta? markaasu waxay dhaheen dikruka akhaaka bimaa yakrah, walaalka oo ku sheegta waayo waxa uu necab yahay, xanta taasaa la dhahaa bay dhaheen. qaalu wuxuu yihi ma garanaysaan kiibada iyo xanta? markaasay dhaheen maya, ilaahay rasuulkiisaa garanaya. leanna saxaabada waxay u tiiran jireen nabiga alayh isalaatu wasalaam. markaasuu nabigu wuxuu yihi maya, waxa weeyaan walaalka ood ku sheegta waxa uu necab yahay. markaasaa la yihi haddii waxa aan ku sheegayo uu yahay ka waran. markaasuu nabiga sal alla alay slam wuxuu yihi haddii waxa aad ku sheegaysa uu yahay waad xamatay. alxadiiska fiiriye wuxuu ku leeyahay hadda qofka soomaaliya kaa hor imaada aniga anaa waa kuu sheegay saas baanba kugu iriba, ama heblaayey saas baan kugu iri hortaadaan ka sheegay ka caddee, waa iyada xantii wey. laakiin aqoon buusan u lahayn qofka muslimka ah. hadduu ogyahay qofka walaalkiisa hadduu ka maqan yahay hadduu hor joogaba ma u xanteen. dikruka akhaaka bimaa yakrah, haddii waxa aan ku sheegayo uu yahay ama ay tahay ka waran waad xamatay hadday tahay saas. haddii aysan ahayn ama uusan ahayna waad ku been abuuratay, faqad bahadtahu. xadiiskaas imaam muslim baa warinayo. waxaa lihi ibnu mascuud, cabdullahi ibnu mascuud ad garanaysaan, saxaabiga jaliilka ahay oo aadka u qiimaha badnay oo la dacwada la jahray quraysh oo taagan, oo weliba isagoo reetolkii aysan joogin magaalada maka, oo reetolkii magaalada maka aysan deganayn, awoodna aan ku lahayn, cid qabiil ilaalinaysana aysan jirin. kelimaadkii carabkiisa uu kaga dhawaaqay oo barakaysanaayo aayaadka ilaahay subxaana wa tacaala in lagaga soo qaaday abujahal rabaxti oo dhiiggiisa koray hoos u booday. alraxmaanu callama alqur'aan khalaqa alinsaan callamahu lbayaan. aayaadkaas ku akriyay quraysh. ibnu mascuud ad garanaysaan radia allahu canhu wa ardaah in uu qur-aanka uu yihi ma aynan dhaafi jirin ilaa 10 aayad xifdan iyo macnan aynu baranno. waxaa la yihi nin baa u imaaday, waa loo imaado waxaa lagu yihi hebel baa imaaday oo garkiisa uu ka da-ayo dhiig guduud. markaasuu wuxuu yihi yani waxaa loola jeedaa xan buu sameeyey. wuxuu yihi waqad nuhiina can tajasus, wax inaad soo sheegtaan oo soo jaajustaan khabarka aad nooca u sheegtaan sax ma ahan, waana laga reebay. laakiin hadduu noo soo daahiro buu yihi shay markaa aan u jeedno qofka waa u qabanaynaa. yani qofka walaalkaa ah maxaad u malaynaysaa maanta qof xamanaya haddaa waxaa laga yaana ku dhaniyo anigu xanta ma jecliye maaragtay runtii waana wax xaaraama, laakiin hebel arrintaasuu sameeyey. yani qofkii waa ogyahay inay xaaraan tahay, laakiin carabkan shaydaanka ah ee dhinaca khayrka aan ahayn marka loo adeegsanayo shaydaannimo isu bedelayo baa wuxuu rabaa qofka walaalka ee muslimka ee cirdigiisa iyo nasabkiisa ka xaaraanta inaad xamato inuu banaysto. markaas wuxuu ku leeyahay ma rabin inaan sheegay kelimadaase, laakiin hebel ama heblaayo way fiicanta. uu soo ammaanaya xataa laga yaabaa wuxuu usoo ammaanaya usoo digdiglaynaya inuu ruugu rabaa dhiiggiisa marka uu ka dhergo. ninkii kalena madaxu ululayaa wuu dhegeysanayaa. waa mushkilo wey ikhwaani, halis wey halis wey. inta dadka aan annaga soo gaarnay acmaarteenna waaba tirsan tahay, berrina waa dhimanaynaa. waxaa lai sheegay odayaal sheekeysanaya hadda ka hor ka dhageystay, nin ay yaqaaneen bay ka sheekeynayaan. waxay dhaheen dadka aan garanayna magaalo hebel la dhaha joogo, hebel baan ka garanaynaa wuu dhintay bay dhaheen. markii la rabo qof in la xanto
ood kusoo sheeqaado wuu kaa dhaqaaqaya ninkaas ahlu khayrka ilaahay subxana wa tacala jannadiisa ka waraabiyo yani u fiiri markuu dadka uu dhihi jiray war walaalayaal iska daaya xanta war iska daaya xanta war iska daaya xanta waa mushkila wey oy diideen maalmihii dambe wuxuu bilaabay marka dadkii inuu si u tuso baracticsa oo macnaha uu xaqi oo kaamila indhaha ka saaro qofka markuu waxaan bilaabo uu ka dhaqaaqay khalaas marka haddii kaleento qofkii walaalka ahay ee muslimka ahay eed jeclayd ee isku diinta aad ahaydeen isku akhlaaqda aad ahaydeen isku kitaabka aad haysateen oo isku rasuulka aad ahaydeen sala allahu alay wasalam ayaad maaragtay carabkaadii ku ruugeysaa waa arrin aad iyo aada runtii looga naxo waayo wuxuu soo maray baa la yihi camar ibnu caas ood garanaysaan saxaabiga jaliilka ahay yacni salafka marka laga sheekeynaya ikhwaani waa dad cajiib la wey laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana asxaabii ka nujuum buu nabiga ayama htadayta iqtadayta saxaabadayda waa xidigahaas oo kale midkii aad ku dayataan marnaba macnaha ay isha ku baadiyoobi maysaan camar ibni caas ood garanaysaan faatixu mas saxaabigii jaliilka ahay ayaa waxaa la yihi wuxuu la socday saaxiibadiis markaasuu wuxuu soo maray neef baktiyey buu soo maray oo dhulka yaallo neefka markuu baktiyo oo dhulka uu yaallo wuu bararaa ama xataa insaanka haddaan la duugin wuu bararayaa meydka markaasuu wuxuu yihi meydkan ma ujeedaan oo xayawaanka meesha yaallo ilaahay baan ku dhaartay buu yihi qofkeen inaga mida inuu cuno hilibkan isaga ah oo caloosha uu ka buuxiyo baa oga fiican buu yihi qof walaalkii oo muslima hilibkiisa intuu cuni lahay carabkiisa ku cuni lahay wal fiir ikhwaani wal fiir waa arrin halisa weeyaan waxaa laga maanta inay noo sahlan tahay oo inoo fududahay oo waxba aynala ahayn oo maaragtay oo cajiib wey inaan gabar muslimada walaasheena hilibkeeda cunno si fiican weliba looga dhargo oo la isu jiibiyo oo midba dhinac ka qabato oo qof walaalkeen oo muslim oo raga la qabto oo wax yac ka dhaha aysa jirin cajiib wey cajiib wey marka qofka waxaa la rabaa almuslimuuna almuslimu nabiga sala la alay slam wuxuu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi aw min yadihi wa lisaanihi muslim waxaa la dhahaa qofka ay ka nabadgalaan dadka muslimiinta carabkiisa iyo gacantiisa haddii dadka muslimiinta ay ka nabadgalaan gacantaada iyo carabkaada islaamnimadkaada iyo iimaankaada qawo carabkaada haddii aad u adeegsato dadka walaalaha ee muslimiinta inaad qaninto inaad wax ka sheegto inaad xamato inaad dhibaateyso waa mushkilo weyn aada iyo aada weyn xasan albasri saasoo kale inta adilo badan ayuu soo aroorinayaa sufyaan ibnu cuyayna wuxuu leeyahay xantu iyadu deynta xataa way ka daran tahay leanna deynta waad gudi kartaa lakin xanta ma gudi kartid lacag haddii lagugu leeyahay qofka kugule waad siin kartaa laakiin carabkan iyo xanta wuxuu ka dhargay qofka walaalka ee muslime dhiiggiisa marka qofka muslimka ah waxaa la rabaa inuu carabkiisa ka badbaadiyo dadka walaalihiisa haddii qof kasta oo muslime carabkiisa uu xakameeyana waxa weeyaan dadku waa kala badbaadi lahayen muslimiintuna waa kala badbaadi lahayen akhlaaqdana waa wanaagsanaan lahayd xumaataduna way yaraan lahayd waa xanta iyo ifkiga iyo buhtaanka yacni xanta iyo been abuurka na dhibaato ayuu leeyahay ifkigana waad garanaysaano qof muslime qiso usa sameynin oo waxa weeyaan aad ka sheekayso qisadii maaragtay waad garanaysaan oo ilaahay subxaana watacaala qur-aan kusoo jiye suuratu nuur oo caaisha ridwaan ullaahi calayha oo ilaahay subxaana watacaala ku tahiray ilaahayna u sheegay maaragtay inay arrintaa ay been ahayd in aladiina jaaءuu bilifki cusbaة minkum laa taxsabuuhu shara lakum qur'anka bal huwa khayru lakum likuli imri'in minhum maktasaba min alإثmi wاladii tawalaa kibrahu u fiiri ilaahay subxaana watacaala wاladii tawalaa kibrahu cabdullaahi ibnu ubaya loola jeedaa arinkaa qofkii tawaliyey waa isaga oo ayaga ka mida dadka ilaahay wuxuu yihi cadaab buu leeyahay misdax oo saxaabi ahay kuna noolaay gurigii abubakr صadiiq abubakr صadiiqna wuxuu dhalay caaisha ridwaan ullaahi calayha canha waxa weeyaan qisadii markay dhacday oo waxaa aragtay oo dhibaato e dhacday oo nabiga sal ly slam xaaskiisii ka hijrooday oo
qisadii caamkeeda garanaysaan misdax waa la garaacay maxaa loo garaacay carabkiisa ku hadlay qisada ninkii soo alifay oo dhanna faraha laga qaaday leanna ilaahay waa ogaay munaafiqaas weyn oo maaragtay arrinta soo marka carabka qofka bini aadamka ah carabkiisa haddii dadka ay ka nabad galaan alxamdu lilah fa nicma khayr iyo adkaar iyo tasbiix iyo tahliil iyo takbiir intaasaa kugu filan intaasaa nagu filan waxay leeyihin culamadu algiibatu xanta tashmalu kula ma yafhamu minhu maqsuud dami sawaءa kana bikalaamin am bigamzatin aw ishaaratin xanta waxay noqon kartaa waxyaabo badan baa soo hosgelayo xataa waxay noqon kartaa wax la qoro waxay noqon kartaa wax lagu dhawaaqo qalinka ayuu noqon karaa marka way badan tahay macnaha qofkana nuqsaan bay gelinaysaa diintiisa ama gabadha nuqsaan bay gelinaysaa diinteeda dabeecaddeeda nasabkiisa qofka lianna waxaa laga yaabaa ilaahay subxaanahu watacaala wax u abuuray inaad caynayso qof baa laga yaabaa inaad tirahdo waa madow yahay ama way gaaban tahay waad garanaysaan haddii la qaado badda la geeyey doorsoomayso hadduu gaaban yahay qof kaama fakanayo hadduu dheer yahay kaama fakanayo hadduu madow yahay kaama fakanayo hadduu cad yahay kaama fakanayo hadduu maaragtay uu jismigiisa wen yahay kaama hadduu caato yahay kaama fakanayo subxaana allah waa cajiib wey marka waxaa lahaa qofka muslimka ah inuu ogaado waxaan aad kelimadan aad ku hadlayso ama aad qorayso ama aad ishaarayso oo dhan in ilaahay subxaanahu watacaala uu kugula xisaabtamayo marka qubxiga iyo waxyaalaha xun oo dhanna carabka ayaa keeno carabka ayaa ku hadlo wayatacaadamu dambu wadamb marka ay ka soo baxdo weliba kuma sii jirto qofka ahlu cilmiga ah iyo qofka wanaagga lagu tuhmayo adigu waxaa tahay gabar muslimad ah waxaa tahay rajul ahludiin sheeganayo oo diintii iyo maarata sunnadii kaa muuqato waxaa la rabaa marka dadka muslimiinta ee walaalaha oo kalena inay kaa badbaadaan waxaa laga yaabaa inuu dhaho fulan kana mujtahida fi lcibaadati walcilmi wاnazaha wاlamaanati hebel wuu ku dadaali jiray cibaadada iyo cilmiga aad buuna amaanada ugu fiican yahay waana qof dhowrsan laakiin maalmahan waxaa lagu ibtileeyey sida annaga naloo ibtileeyo kalanto waxbuu rabaa inuu qaniino marka waa siiqadii hadda aan ka soo sheekeyneyni wuxuu leeyahay saa'ani maa waqaca lisadiiqina ama waxay leedahay gabadhii waxaan ka xumahay heblo maalmahan waxa ku dhacay oo qofkii muslimkaa markaas dhiiggiisii aada banaysato adigoo weliba laga yaaba inaad maaragtay arrintaa iyada been ka sheegayso wuxuu leeyahy ibnu qayim aljawzi ood garanaysaan imisaan aragnay la arkay buu leeyahay qof mutawaricun can alfawaaxish waxyaalaha xunxunka oo dhan ka fogaaday iyo dulmiga laakiin carabkiisa dadka ku qaniinayo iyo dadka dhintayba oon u aabayelayn marka halis way qofka marka waxaa la rabaa muslimka ah inuu naga badbaado carabkeena waxyaalaha aan u sheegayna waxaa ka mid ikhwaani oon muxaadarada bilowgeedana u sheegay inaa annagana insha allahu tacaala waxa ilaahay subxaanahu watacaala dunuubteeni horena hanoo dhaafo ilaahay subxaanahu watacaala carabkeena wixii ka dambeeyana ha xifdiyo laakiin qofka muslimka inuu ku dadaalo u ogaado waxyaalaha carabkiisa ka soo baxayo inaysan hadlun dhacayn waxa laguu qabanayo haddii hadda laba qof meesha ay ku dagaalanto ama ay iscaayaan oo ay maxkamad tagaan maxaa loo qabanayaa waxay ku hadleen ogow ama ficilkii ka dhacay labadii marka u fiiri lisaankii iyo yadkii haddii laga badbaaday maxaa umalayna marka carabkaadina laga badbaaday gacantaadina laga badbaaday waa adag tahay banaankiis maray dhahan soomaalidu maradiisu geed ma qabsato marka qof kasta oo muslime inuu marka arrimaha iyada ku dadaalo beenta inuu iska ilaaliyo yani waa halis wey waxaana ugu daran midii horan soo sheegnay ilaahay subxaana watacaala lagu iftaroodo nabiga calayh isalaatu wasalaam xadiis uusan sheegin laga sheego man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcaduhu min annaar booskii uu ka fadhiisan lahay naarta macnaha ha diyaarsado nabiga alay uu ugu goodinayo carabka marka dhibaatada waxyaalaha uu keeno dhan intaaso dhan isagaa sabab u ah waxaa laga yaabaa marka qofka xasanaadkiisa oo dhan inuu ka cuno
wuxuu leeyahy cali bn abi aalib man kana lahu cinda naasi halaaثun qofkii saddex laga helo waa muhim qofka marka uu sheekaynayo run sheego markii la aaminana aanan khiyaanin markuu ballan qabtana aanan ka bixin qofkaasi waa qof aada iyo aada u dadaalay leanno qofka runta sheegayo runtu waxay qofka ku baraarujinaysaa ama ay geynaysaa sida xadiiska ku caddaayay jannada beentuna qofka waxay u horseedaysaa inuu galo naarti weeyaan waxaa laga yaabaa marka waxyaalo badan oo annaga aan sahlana maantay oo ay ka mid tahay nukadka waxyaala la dhaho kaftanka waa dhibaato ka mida dhibaatooyinka jira maantay waxaa laga yaabaa dhinaca khayrka qofka intuusan oola damcin inuu dadka ooga qasolsiinayo waxyaalo xan ah ama dhibaato ah ama qofka muslimka ah dhib u geynayo weyaan waana arrin aada iyo aad waylun liladii yuxadiثu bاlxadiiثi liyudxaka bihi alqowm waxaa waadi naareed usugnaatay qofkii ka sheekeeyo sheekooyin si uu dadka macnaha uga qosolsiiyo sheekadaasu weliba uu ka been sheegayo wawaylun lahu wawaylun lahu beentu waad ogtiin ikhwaani waxyaalaha istithnaacaadka ayaa jiro oonan badnayn sida dad muslimiin ah oo maaragtay sulxi dhex dhigayso khayr dhexdooda ah iyadu beenta ma soo gelayso waxay noqonaysaa nooca maaragtay la baneeyey waxaa ka mide walislaaxi bayna annaasi dadka oo khayrka wanaagga loo kala qaado iyadana wanaag weeyaan laakiin carabkaaga hadduu dadka sharta u kala qaado waa mushkilo waay hadduu ka sheekeeyo xumaanta mushkilo waay hadduu ka sheekeeyo namiimada mushkilo waay hebloy maanto dhan ama hebelo waxaa lagaa sheegaya waxaas hebel saasuu kulahay hebel saasuu kulahay kafaa bilmari ikhwaani an yuxaditha kula maa samic qofku waxa ugu filan dembi oo dhan waxa ugu filan inuu ka sheekeyo wuxuu maanta maqlay haddii saakay markaan ka lahnay ilaa habeenkii markaan soo hoyanay maanta aan ka sheekeyno intaasa dembi noogu filan marka qofka muslimka waxaa la rabaa inuu ku dadaalo u ogaado waxaan uu ku hadlayo amaam allahi waa lagu su-aalayaa laba malagna way ku ilaalinayaan oo way qorayaan wax allaale wixii afkaada ka soo baxdo maanta inaad khayr ku hadasho iyo wanaag dadka inaad khayrka farto xumaantana aad ka reebto kula haboon xumaato oo dhanna aad ka fogaato aafada marka qofka waxaa ka mid a aafeeyo xaqa inuu ka aamuso xataa wuxuu leeyahay ibnu qayim aljawsi qofka laba aafo ayuu leeyahay carabkiisa oo waaweyn mid hadduu ka takhaluso waxaa laga yaaba midka kale inuu dhigo waxaa weeye labadooda waa aamusnaanta iyo hadalka bal u fiiriy haddaad hadasho khayr ku hadal haddaad aamusnaato shartaada ummaddaa ka nabadgaleen waa muhiim haddaad hadasho khayr ha lagaa faa'iido ummadda islaax dhex dhig wanaag dhex dhig khayr u sheeg ilaahay subxana watacaala xasuusi wuxuu ilaahay xarimay u sheeg wuxuu ilaahay waajibi u sheeg wuxuu ilaahay jecel yahay u sheeg wuxuu ilaahay nacab yahay u sheeg waxa khayrka o dhan oga sheekay masaajidka banaanka meelaha maratay tajmucaadka dadka isugu imaadaan haddii intaa lagaa waayo adigana dadka shartaada waxa weeyaan ka ilaali shartaada ka ilaali weyaan kufuu alsinatahum can ilbaili waadlaquuha fima yacuudu calayhim nafca fi laakhira nafcahum fi laakhira waxaa lagaa rabaa dadka inaad khayrkii wanaagga gaarsiiso waxa sharto dadka gaarsiinayana aad ka ilaaliso wey aad ka ilaaliso waxaa lagaa rabaa inaad iska ilaaliso qof muslim ah inaadan qadfin gabdhaha muslimaadka ah aadan xumaan ka sheegin waxaadan hubin aadan ku hadlin والذينa yrmuuna المحصناaت ilahy le ثuma lam yأتوu بأربcaةi شhuهadاء فاجلدوهم 80 جلدة وlaa تqبلوا lahm شhaهاadة أبدا waa aafo wey gabar muslimada oo cafiifada oo dhowrsan oo ilaahay rumaysan oo nabiga sal الlaه عalيه sلم rumaysan inaad carabkaada dheer ku taagto aad wax ka sheegto ayada iyo xijaabkeeda iyo nasabkeeda iyo dhowrsanaanteeda ama tuhmo aad wax ku tunto aad ku turto halis wey ikhwaani fajriduuhum 80 jalda haddii la waayo meel aad saarta ereygaas waxaa la ohan jiray bal u fiiri cumar khaaaba wuxuu ku lahay abu muusa alashcari wuxuu ku yihi xadiis buu sheegay markaasu wuxuu ku yihi bayinatun aw xadun calayk soo cadday xadiiskaas haddii kale waa ku jaldiyeynayaa ninka lagu leeya abu muusa alashcari saxaabi jaliila waay bayinatun aw xadun calayk soo cadday leanna cumar khaaab waaguu joogay hadalku qofka hadduu ku hadlo waxaa weeyaan min ayna laka hada la ohan jiray war xageed ka keentay
waa la cabsan jiray qof walba marka uu is ilaalin jiray maanta laakiin waxaad moodaa sida faras la sii daayay qof walba waa xor wey waxaad moodaa weliba marka la yihi wadamo dimuqraadiya iyo waxaa la imaaday qofka xoriyat lqowl suu raba u hadli karaa kuhoosii jiraba yani carabkaasuu sii daayay qofka dadka walaalihiisa muslimiin axzaab jamaacaad community wax allaale iyo wax uu reebaya ma laha halis wey marka aafadaasna maanta qof ka badbaado oo muslima aad bay u yaraanaysaa ina qadfa almu'miniina waalmu'minaati in la gamo oo wax laga sheego acraabtooda nasabkooda wax laga sheego diintooda wax laga sheego la tuhmo waa min adunuub alacdam ay ka mid tahay dembiyaalka waaweyn kabaairtayna soo gelaysaa maantayna carabkeena waxaa lagu ibtilay in badan oo maaratay xataa ducaad sheeganaya waxyaalahaas wey halis wey ikhwaani waxaa laga yaabaa inaad ka maqasho qof hebel waa khawaarij muctazili ashcari ikhwaani tabliiqi waxaasoo dhan soo tiri mutadarif wey rajci usuuli qof muslim ah calmaani kelimada calmaani xataa inu aqoonina laga yaaba isaga dhawaaqo macnaha asmaadii baa dadka qaar ka mida maanta maqlaan wuxuu ku leeyahy fulan calmaani waay ya akhi calmaani maxaa la hadaa tirada ma fasiri karo ma hiya alcalmaaniya waman hu alcalmaani mushkila waay maasuni bachi qawmi camiil wahaluma jara wad cajiib wey min gayri bayinati walaa burhaanin buu dadka muslimiinta acninaya wuu jarxinaya qofka muslimka ah kelimad uu ku hadlaa laga yaabaa khaanad inuu ku ridaba uu ku dha fulan xisbi fulan uu ka tirsan yahay ana ogba wuxuu aaminsan yahan og aniga yani carabkii laga sheekeynayay ayuu dadka muslimiinta ku tuhmaya wa miman xawlakum min alacraabi munaafiquun wa min ahli اlmadinati maraduu calى الnifaaq aayaddaas markuu fasirayay qataada wuxuu yihi maa baalu aqwaamin yatakalafuuna cilma الnaas dad shanigooda muxuu yahay iyagu shaqo ka dhigtay dadka arimahooda waxay leeyihin fulan jannaduu galayaa fulan naartuu galayaa naftiisa haddaa weydiisana war uma hayo yani waa aafo weeye mushkilo waay mushkilo waay marka qof kasto wamaa cilmii bal u fiidi nebiyada ilaahay qur-aanka ku laabo wamaa cilmii ila bima kanuu yacmaluun buu leeyahy nabiy llahi shucayb nuux buu ahay wamaa cilmii ila bima kanuu yacmaluun shucaybna wuxuu leeyahay baqiyat اllahi khayru lakum in kuntum mu'miniin wama ana calaykum bxafiid وqاl الlah لنabiyi sal الlaه عlay slm laa taclamuhum naxnu naclamuhum nabi maxamed waa lagu yihi laa taclamuhum naxnu naclamuhum adigu ma garan kartid inagaa garanayno sanucadibuhu maratayni munaafiqiinta marka loo goodinayo idan marka adiga qofkan walaalka oo muslimka ah oo tuhmada aan kula degdegayno oo jarxiga aan kula waxaa laga yaaba maanta waxaa soo baxay bijarxi wa tacdiilka xataa dada aqoonin ee faraha la galaan wuxuu ku leeyahy fulan faasiq waay fulan mubtadic waay laa yajuuzu ma banaa gadaashisi lagu tukado ya akhi min ayna tacalamta hada alcilm yaa ku baray xageed ka baratay meeqa kutub kitaabka ugu yaro musطalax xadiiska ma akrisatay waxa la jarxiyey waxa tacdiilka ma garanaysaa abyaada ugu horeysa xataa wax ma ka xibsantaa ma taqaanaa awaluhu صaxiixu wahuwa matasal isnaaduhu lam yashhud aw lam yacul yarwiihi cadlun daabitu can milihi muctamadu fi dabطihi wa naqlihi adigu wax ma ka garanaysaa see u jarxisay qofkaas muslimka walaalka ah see wax oga sheegtay see dhibaato u gaarsiisay see carabkaada uga badbaadi waaye wuxuu ku leeyahay fulan sheekh baa ii sheegay aniga fulan mubtadic waay horta bidcada ma garanaysaa bidca horta maa man huwa mubtadic maxay tahay waxay tahay muxuu bidca ku noqday muxuu la imaaday ma wax ilaahay subxaanaه watacaala uusan jidaynin nabiga calayh الsalaatu wasalaam uusan jidaynin oo labadooduba aysan raalli ka ahin miyuu qofkaan la imaaday maxaa ka rabtaa carabkaada maxaa ku daba dhigay calaykum anfusakum laa yadurukum man dala ida htadaytum aayadda oolama jeedna micnaheeda waxaan oola jeednaa qof kasta oo muslimo naftaada ka adkaaw bal horta naftaada ka adkaabo xakamay shaydaanka iyo shahawaadkeeda ka xakamay oo ogow qofka muslimka ee carabkaada ka nabadgeli lahayo afkaaga inay naftaada u baahan tahay marka koobaad inay iyada nabad gasho iyada jismigeeda iyo jirkeeda inuu ilaahay ka badbaadiyo subxaana watacaala naarta qofka muslimi waa muhiim inuu ku baraarugo
waxaa ka mid a qofki inuu ku dhaarto ilahi subxaana watacaala oo keliya uusan ku dhaaran cid kale man kaana xaalifan falyaxlif billahi aw liyasmut qofkii dhaaranaya inuu ilahay ku dhaarto bas lama rabo inaad ku dhaarato shirkiyaadka sharafta inaad ku dhaarato lama rabo waxaaso dhan lama rabo waxaa la ilahay inaad ku dhaarato subxaana watacaala keligiis waxaa la rabaa qofka muslimka ah carabkiisa inuu ku qoyan yahay kalimatu laa ilaha ila اllah muxamad rasuul الlah laa yazaalu lisaanuka raطban bidikri اllahi carabka ilahay inuu ka qoyan yahay kalaamka ilahi subxana watacaala carabkaagan inuu kalaamka ilahi subxana watacaala ka qoyan yahay qur-aanka ad akrinayso adkaarta aan akrino subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha ila اllah wallahu akbar xadiiska daawa aan soo akrinay qofkii dib ugu laabto intaa qof muslima oo walaalka ah ama gabar muslimada oo walaasha ah ceebahooda aad raaraaci lahayd ama ceebtiisa aad raaraaci lahayd ood wax ka sheegi lahayd taadaa kugu filan wallahi law calimuu binuniyat lqaxtaani wallahi law calimuu qabiixa sariirati laaba salaama calaya man yalqaani hadday ogaani lahaayeen wallahi law calimuu qabiixa sariirati waxa ii qarsoon xumaatadeeda nafteyda haddii qofka uu ogaan lahay laaba salaama calaya man yalqaani qofkii kaa hor imaaday salaanta kaama qaadan walaa acraduu lii waman lahu suxbatii walabu'tu bacda karaamati bihawaani dadkao dhanna waa kaa jeesan lahaya laakin biqadar illaahi wa fadlihi wa manihi ayaa ilahayna asturay subxaana watacaala isagaa saatire ceebaheenoo dhan oo asturay oo tiro badan oo leyl iyo nahaar iyo calan iyo jahr loo galo ayaa ilaahay subxaana watacaalana asturay waman satara muslima satarahu llahu fi dunya waalaakhira qofka walaalka haddaa xumaan ku aragto meesha intaa u naseexayso gacanta aad qabato aada asturi lahayd ood khayrkii wanaagga u sheegi lahayd oo xumaatada aad ka reebi lahayd ayaan sheegaynaa xumaatadii waa faafaysaa 2 taleefon baa la diri 3 taleefon ba isu bedeli internetka baa lagu shubay facebookaa lagu shubay twitterka baa lagu shubay telefisonada laga shiisheegi waaba dhamaatay oo taadi ilaahay subxaana watacaala uu kuu asturay xageed geysi soo ma ogid ilaahay subxaana watacaala inuu ku asturay leyl iyo nahaar ilaahay subxaana watacaala akhdaadaada maarta uu banaanka keeni karo qiyaamaha marka la tago ilaahay subxana watacaala addoomaha xisaabinayo qofka muuminka ilaahay intuu ceebihiisa u sheego gooni oo la baxo buu markuu u tiriyood jarayso ood ogaato waxa xumaata aad samayso o dhan ood sugaysa naarta in lagugu tuuro buu ilaahay bifadlihi wa karamihi wuxuu odhanayaa intaasoo ceebe iyo intaasoo akhlaaqna waa samaysay waana ku asturaya maantay waxaana kugu asturaya ilaahay subxaana watacaala fadligiisa iska tag yaa laga helaa ilaahay baa laga helaa ilaahaygii khaaliq ahay eena abuuray eena keenay koonka ee carabka noo sameeyey ee adinka noo sameeyey ee xumaatadii wanaagana na kala tusay subxaana watacaala wahadaynaahu najdayn falaqtaxama alcaqaba labadii xumaatadii ilaahay subxaana watacaala dariiqii xunna na tusay dariiqii wanaagsanaana na tusay dariiqu xun ilaahay waana tusa wuxuu yihi dariiqa waa xun yahay ha raacina qodxaa ka buuxo waa aad iyo aad buu maaratay naartaana lagu aroorayaa dariiqaana waa fiican yahay jannaa lagu galaa aada bal abubakr sadiiq hadduu leeyahay hada aladii awradani lmawaarid kan ayaa meel walba maarata ii aroorinayo annaga xaggeen joognaa abubakr dadka ma xaman jirin waxba kama sheegi jirin abu dari oo ku dhigay abubakr soo saxaabiga ma ahayn baa wuxuu ku yihi iga aarsa kelimad intuu ku yihi markaasuu yihi maya isagoo oynayu nabiga sal alla alay slam u tagay markaasuu yihi ina iga aarsada baan rabay waad garanaysaan bilaal ibn rabax saxaabigii wax ka sheegay carabkiisa markuu wax oga sheegay ayuu maaratay ayaa lagu canaantay markaasuu yihi dhulka intuu seexday bilaal ibn rabaxow qoorta iga istaag wallahana ka istaagayn dhulka ilaa qoorta aad iga istaagtay leanna kelimada carabkaada ka soo baxayso insaan baa nahay ikhwaani kulu bni aadam khata wa khayru lkhataa'iina atawaabuun dadkao dhan waa khaldamaan qof aan khaldamin ma laha haddaa ummaddan intay khaldamaan oy gafaan oo ilaahay u toobad keenayn oo ilaahay subxana watacala ay u laabanaynin ilahay intuu baabi'iyu ummad kala keensado gafto ayuu ilaah u toobad aqbali lahay laakiin inaan gafayna laa shaka ee gafkii aan gafaynay ayaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay wa aniibuu ilaa rabbikum ilaahay u laabto oo xumaatada iyada aan iska daayo oo isxasuusiya khayrka iyo wanaagga iyo maarata xumaatadan iska reebo qofka marka muslimka ah markuu ilaahay noo tilmaamo yihi wa ana haada midkan siraaطii waa jidkayga mustaqiiman waa toosan yahay ilaahay wuxuu la hadlaya waa annaga kitaabku wuxuu usoo dejiyey waa annaga ummado naga dambeeyo ummad walba marka ay joogto kitaabka qur-aanka iyada la ina ku dhaqanto mustaqiiman
jidka ilaahay waa toosan yahay ilahay wuxuu yihi fattabicuuhu raaca walaa tattabicu subul dariiqyada jidadka jiirooyinka jeexjeexan ha raacina ihdinaa ilaahuna hanuuni الصراط المستقيم jidka toosan ilahu nagu hanuuni ilahi subحaana وataعala dariiqa xaqa hanagu tuso dariiqa xaqa oo lagu tooso oo la raaco oo wanaaga badan oo nuurka iyo iftiinka ah waa dariiqa ilaahi subحaanaه وataعaalى dariiqaas ilaahi subحaanaه وataعaalى waa ilaahay uu raalli ka yahay oo ilahay leeyahy subحana وataعaalى raaca waxaana qofka muslimka uu ku raaci karaa inuu ku raaco nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam dariiqiisi wax allaale iyo wuxuu nabiga kaga digay ou yihi ka haro ad garanaysaan xadiiskii ku yaalay arbaciinka maa nahaytukum canhu fاjtanibuuh uu yihi waxaan idin amray la imaada waxaad awoodaan shareecada say ufududa u fiiri war waxaan idin amray la imaada waxaad awoodi kartaan kala imaada waxaan idinka raabayna ka wada hara idan marka awaamirta ilaahay subxaanaه watacaala uuna amrana waxaa la rabaa sida ay tahay inaan oga harno bataatan waxaan waa xaaraam waa xaaraam wa axala allahu albayca waxarama الriba ilaahay beeca waa xalaaley ribadana waa xaaraam yeele waa inaad ka hartaa ilaahay subxaanaه watacaala waxaan waa xarimay waa inaad ka hartaa ilaahay waxaan waa xalaal yeelay inaad la imaataa ilahay marka wuxuu nagu adoonsaday waa intaasba annagoo marka dariiqii raacayna ilahi subxaana watacaala oo ku raacaynay hadyigii nabiga salى الlahu alay slam ayaa waxaa la rabaa inaan nabiga alayh الsalaatu wasalaam akhlaaqdiisii iyo sifaatkiisii ogaano quraysh marka ay shiraysay oo nabiga alayh الsalaatu wasalaam lasoo dirin oy shireen oy kacbada ku shireen yay doortaan nabiga alayhi الsalaatu wasalaam asbaabtay u doortaan maxaa ka mid ahay amaanada iyo sidqiga iyo cadaalada iyo aamusnaanta iyo khayrka iyo xumaatada uusan samaynaynin bal fiiriya walihada waxaa khiyaarukum fi اljaahiliyati khiyaarukum fi اlislaami ida faqihu gaalada caddaanka ee banaanka taagan kuwooda xataa u kala fiiriya markay soo islaamaan qofkii jaahiliyada khiyaarka ku ahay islaamkuna waa kaga sii macaan badan yahay jaahiliyada waxaa la qabla islaam qofka islaamku markuu qaatana macaan buu gelaya quraysh waxay u doortaan nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ee iskugu waafaqeen inuu asaga u dhigo meel walba ama xajar asadka hala dhigo kacbada waxaa weya sidqigii iyo runtii iyo amaanadii iyo dadku ka nabadgelaya nabiga alayh الsalaatu wasalaam qofka muslimkee maha laysa almuslimu طacaanu wala lacaanu waxna ma lacnado qofka muslimka ah dadka muslimiintana ma duro nasabkoodana wax kama sheego cirdigoodana wax kama sheego mana xanto waxaa la rabaa qofka muslimka inuu ku dadaalo u ogaado waxaan aad sheegaysid amaam allahi waa lagu su-aalayaa adduunyadii aakhiraba ciqaab baa kaaga imaanayo war carabkaagan yarow war ilaahay subxaana watacaala wuxuu u raalli ku yahay ku hadal waxa ilaahay subxaana watacaala min sakhat illaahi carada ilaahay ka midana ka istaag waa wax sahlan wey waxa qalbiga uu qarinayo oo qalbiga uu kaydinayo oo qalbiga khayr ah uu sheegi lahay o dhan carabka ku dhawaaqayo idan carabkii muxuu gudbinayaa khayr iyo wanaag qof baad wanaag u sheegtay wa imaadat lada can ariiqi baad u sheegtay iimaankii baad oga sheekaysay sadaqadii baad oga sheekaysay afcaal khayrkii baad oga sheekaysay xumaatadii baad oga sheekaysay cawaaqibtii baad oga sheekaysay khamriga haddii la cabo fuxshiga xanta namiimada dhibaatada ay leedahay ilaahay subxaana watacaala waa kaa ajirsiinaya carabka aad ku hadashay iyo khayrka aad u sheegtayna ilaahay subxaana watacaala wuxuu kugu bedelayaa sutri badan iyo asurnaan badan ilahayna subxana watacala waa kugu xifdinaya haddii carabkaada uu noqdo mid qaniin badan soo xusnay yuusan ku qaniinin waa mas weya waa mas sida uu u yaryahay u gaduudan yahay ayuu mas u yahay haddii markaa maskana waa aragtayo waxaa laga yaabaa qofka intuu usoo dhawaado hal marno dhagkaa siiyo suntiisana xagey gaartaa ilaa dhimashay ku gaarsiisaa waxaa laga yaabaa kelimad aan ku hadalno oo carabka aan ka sheegno ummado inay u halaagsamaan aqwaam qoom in loo burburiyo dad muslimiina inay maarata xabsi u galaan dad muslimiina in loo dilo kelimada afkaada ka soo baxda laga yaabaa dhiig muslim ina usababtay kufa calayka haada kan ka adkaaw markuu nabiga alayh isalaatu wasalaam dardaarmahayo oo uu leeyahay macaani badan buu xambaarsan yahay waxa uu keenayo ayuu nabiga alayh isalaatu wasalaam og yahay oo mucaad uu ku yiri xadiiskii aynu akrinayni oo mana loo qabanaya waxaan ku hadlayno
oo qofku naarta miyaa lagu tuurayaa weji weji ilaa carabkiisa wuxuu galabsaday maahane idan carabku waa tarjamaan muxuu ka tarjamaa jawaarixdii jirka wuxuu aaminsan yahay qalbiga wuxuu aaminsan yahay isaga ayaa ku dhawaaqo wixii aad qalbiga ku qariso oo dhan carabka ayaa ku dhawaaqo wixii aad necabto oo dhan carabka ayaa lagu sheegaa marka carabka qofka muslimka ah ikhwaani qofka muslimka mutlaq ma aha siisaba waa ina ogaanaa muqayad wa yani mutlaq ma aha qofka muslimka wax allaala wuxuu doono ma samaynayo waa xadaysan yahay xuduud buu leeyahay xuduuddaas uu ilaahay idin jideeyey buu nabiga alay slat slam ley waxadda xuduudan falaa tactaduuha ha xadgudbina aayaadka ilahay akri waman yatacadda xuduud allahi faqad dalama nafso xuduudda ilaahay qofkii tallaabsado ee dhaafo naftiisuu dulmiyey waxaa laga rabaa marka qowlkaaga hadalkaaga ficilkaaga oo dhan qofka muslimka inuu xadaysan yahay inaad ogaato haddii kelimadan maanta aad ku hadasho kelimadan kaa soo baxday eed ku hadashay miisaankeed intuu leegyahay qofkaa walaalkaa eed kelimadaa ku tiri ama hortiisa aad ka tiri ama gadaashiisa aad ka tiri adiga maxaa kugu soo laabanayo adduunyada iyo aakhiradaba adduunyadana walaalkaabaad ku weysay sharaftiisii iyo nasabkiisii iyo qiimigiisii iyo gabadhii walaashaa ahayd ee ku jeclayd ee hadiyaadka kuu keenaysay ee ilaahay dartii kuu jeclayd baa waxaa laga yaabaa hadday ku maqasho maantay inaad xamatay qalbigeeda inuu kaa go-o waxaa la rabaa marka qofka muslimka ah adigana inaad noqoto inshiraaxu sadrin qalbigaada inu waasic yahay qofka xataa kuu keeno wararka kelimaadka ee namiimka la dhaho namiimku waxa weeye qofka hadalka inuu qaado liifsaadi ilkalaam hadalka dadka inuu isku diro daraaddeed inaad ku dhahdo ha ii keenin warkaan gabadhaasna walaashayana hadday ku hadashana ilaahay ha ka cafiyo haddaysan ku hadlina cafis wey laakiin qofkii walaalkaa ka warqabina laga yaabaa kelimad namiimnimona loogu sheegay oo qof carabkii ka soo baxday oo qofkaasna liifsaadi naasi dadka inuu fasaadi ugu dhawaaqayay inaad qofkii ku nacdo ikhwaani lama rabo waxaa la rabaa iimaankaada inuu haabit yahay oo uu sugan yahay oo qofkaa walaalkaa ah wixii isaga uu ku hadlay ibnu mascuud aan soo marnay hadda wuxuu yidhi annagu dadka ma jaajuusno dadkana ma tixraacno wixii qofka uu ku hadlayna markaas wixii uu ku hadlay ayaan u qabanaynaa naxnu naxkumu dawaahir wallahu yatawala saraa'ir idan marka haddaan rabno in qofka muslimka aanu naga badbaado dhiiggiisa haddii ka waran qof walaalkaa ah ood jeceshahay oo taqaanaan oo nasabkiisa iyo saaxiibtinimadkiisa iyo meeshuu gala aad taqaano maantay meeshaan lagu cuno hilibkiisa la xanto la isu jiibiyo qof ka hadla la waayo 3 iyo 4 qofood jamaaca ama 3 gabdhood iyo 5 iyo in ka badan oo ilaahay subxaanahu watacaala ku imtixaano oo alla arka afkaadu dhiig ka dacayo afkiino macnaha qofkii muslimka ay afkiisa dhiig ka dacayo waa calaamad wey halis wey walihaada ba aayadan qofkii mufasiriinta waxa ay ka dhaheen oo dhan tatabuc raacraacdi ayuxibu axadukum qofkiin ma jecel yahay an yaakula laxma akhiihi maytan hilibkii walaalkaa oo taqaanay oo kula aabbahay ama kula aabbahay la hooyada ahay hortaada la keenay isagoo dhintay weliba inaad cunto ma rabtid bal markii lagu dhaha walaalkaa waa dhintay laga yaaba madaaris inaad fasaxdo aabbaha waa dhintay madaarisii fasaxdo murugo kugu dhacdo isagoo dhintay hilibkiisa miyaa cuni kartaa marka waa maya waxyaalaha maanta caalam alislaami oo dhan loo kari la-yahay waxaa ka mid ah xanta wa waana waxa ugu weyn uguna khatarsan wa ugu khatarsan wa cagsigeeda marka waxaa la rabaa ikhwaan inaan iska ilaalino waxyaalahaas qofka wuxuu isaga ilaalin karaa bedelkii aad ku bixisay waxaasoo dhan inaad ku bixiso dhinaca wanaagga ah subxaana allah walxamdu lilah mar allaala markaa ku dhawaaqdo waxaad tallaalaysaa geed baad ku tallaalaysaa oo timir baad jannada ku tallaalinaysaa wanaag dad aad wax ka sheegi lahayd nafsadaada ku mashquul xumaatadeeda ku mashquul ogow jawaarixdaada
qof walba oo inaga mida maanta hadduu xisaabtamo saakay markaa kalaaday ilaa caawa markaad imaatay intii aad qabatay waxaa weeyaan waxaa laga yaabaa inta khayr aad samayso o dhan i tirsan tahayba waxaa laga indhahaada inay xumaato ku dhaceen waxaa laga gacantaada qof muslima inay maaratay gaartay carabkaada qof muslima inuu gaaray soo ma jeedid maanta imise jusoo qur-aan akrisay imise axaadiis baa sheegtay imise qof walaalo muslim ahaad maaratay aad soo booqatay ama xumaato aad ka reebtay ama wanaag aad u sheegtay ama naftaada aada la dagaalantay waxaa lagaa rabaa waidaa khalawta biriibatin fi dulmatin wالnafsu daaciyat ilى طugyaani faاstaxyi min nadari ilahi waqul laha in aladii khalaqa dalaama yaraani sida nafta xumaatada ay u raadinayso inaad tirahdo wax walba oon ku hadlo wax walba oon sheego wax walba oon fiiriyo ilaahay subxaana watacala baa ila xisaabtamaya marka waxaan haddaa ilahay dartii oga tagto ilahay waa maarata bedel khayr buu ku siinaya shay qof oga taga ma jirto ilaahay daraaddi ilaa ilaahay wuu u bedelaa ilahay wuxuu ugu bedelaa wixii wax ka khayr badan fandur racaaka allahu ilaa hadi xasanaati lhaa-ila waxyaalahaas wanaagga ayaa la rabaa marka inaan fiirino iyo camalka wanaagsan oo xasanaadka ilaahay subxaana watacaala uu noo jideeyey oon taklifada lahayn yani fiiri subxaana allah subxaana allahi alcadiim subxaana allahi wabixamdih walaa ilaaha ila allah wallahu akbar waquluu linaasi xusnan buu ilahay leeyahay war dadka hadal fiican hataa ku dhah dadka markaad la hadlaysaan waxaa la rabaa shareecada islaamka inaad adiga qof muslim inaad tahay oo qofkan gaalka ah ee xataa diinta aanan aaminsanayn inuu kusoo islaamo hadalkaada wanaagiisa qiimahaada khiyaano la-aantaada amaanadaada wanaageeda ficilkaada wanaagiisa soo ma jeed sharqa aasiya fi bilaad indulisia wama ilaa dalika oo dhan islaamku wuxuu ku gaaray can dariiqi tujaar dadkay ganacsatada ahay islaamka faafiyey imise wagtiin maal walba soo islaam oo dad cadaan ah oo la keenaa khayr allah siiyo qofkaas marka soo islaamaya waxaa laga rabaa wuxuu ku soo islaamay qofka inuu adig kaa arko laakiin qofkii muslimkaa haddii intii la keeno aada bii-o dhex gelisa iyadiiba carabkii ka waalan oo dadka xamanayso mushkilo waay sidii ninka laga sheegay yihi inta lasoo islaamiyaa la geeyey meel sigaarkii jaadka laga cuno markaasu waxaa la yihi markii la geeyo wuxuu yihi oo dadkan jaadka iyo sigaarka cunayo o dhan soo muslimiin ma aha anigana maxaa ahay muslim aniga muslimka khafiifka maxaa ii diiday marka kan sigaarka caba hadduu muslim yahay kan jaadka cunaa ina muslim yahay kan khamrada xalay kusoo jeeday muslimka yahay aniga maxaa dhinaca adayga iigu dilaysaan marka waxaa laga rabaa qofka dhinaca muslimka ee wanaagsan iyo akhlaaqda qofka muslimka ee macaasi buu noqon kara ahlu macaasi lakinahu laa yakruj can lmilla ilaa in la helo adilo waadixo oo lana fiihi min allahi burhaanu looga saaro alasl huwa almuslim laakiin qofka waxaa rabaa soo islaamayo jawaarixdaada iyo ficilkaada iyo akhlaaqdaada iyo diintaada inuu kusoo islaamo sidqigaada runta markaad sheegayso waxaas ma samaysa haa qofka muslimka been ma sheego wax waa xadaa waa zinaysaa laakiin been ma sheego marka waxaan laga rabaa inaan u noqono qofka dadka kale aan islaamka xataa muslimiinta aan ahayn inaan u noqono mithaal tusaale soomaalidu waxay dhahaan ratiga hore ratiga dambe saanqaadkiisuu leeyahay kii dambe kii horu daba socdaa adiga marka haddaad tahay qof khayrka dadka u sheegayo xumaatada ka reebayo wanaagga samaynayo oo dhan dadka waa kugu daba dayanaya haddii adiga ficilka khayrkaa samayn lahayd ay kugu arkaan laa tanha can khuluqin wata'tiya milahu caarun calayka idaa facalta cadiimun haddii maanta adiga wanaaggii aad samaysay khayrka aad samaysay wixii aad samayso o dhan cagsigeeda aad samayso qofkii wuxuu dhahayaa war ninkaan shalay berrintu wuxuu shalay uu sheegayay marka ilaahay subxaana watacala waxaan weydiisanaynaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa inuu aqwaasheena ee facaasheena ilaahay iswaafajiyo ilahay dhinaca khayrka iyo wanaagga ilaahay subxana watacala na tusiyo ilaahay xumaatada naga reebo ikhwaanii qofka waxa ugu daran ee insaanka ah ee jannada geliyo naarta geliyo labadaba waxa weeyaan alfamu walfarju waa afka iyo farjiga labadaa haddii laga nabadgalo oo la weeleeyo ee la xakameeyo ee la ilaaliyo ee meesha hadalka uu dhacayo la ilaaliyo iyo meesha uu degayo aan ogaano waxaan waxa ka imaani karo ilahi subxaana watacala wuxuu leeyahy ya ayuha aladiina aamanuu in jaaءakum faasiq binaba'in fatabayanuu ilaahay nabi maxamed dadka rumeeyow hadduu idinla imaado qof faasiq ah khabar war buu idin sheegay ilaahay wuxuu leeyahy fatabayanuu cadaysta ama qiraa'o kale fatahabatu
an tusiibuu qowma bijahaalatin waxaa la diidan yahay marka taas way oo fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin qoom aad ku asiibtaan markaas waxaynan cilmi u lahaynba aan waxba ka jirinba oo wixii aad samaysaan marka aad ka shalaysaan idan qofka muslimka ah gabadha muslimadda ah wiilka muslimka waxaa laga rabaa khabarkan isaga ah haddii loo keeno in la tadqiiqiyo in la jilciyo miisaankeeda la saaro in la ogaado khabarka inuu sax yahay inuu been yahay laakiin haddaa la boodo shareecada islaamka ma qabto in qofkan intaad wax ka dhegaysato aada xukmiso la waxaa la rabaa qofka inaad ka dhegaysato inaad ogaato waxa uu sheegayo si fiican u dhuuxdo qofkii kale aad dhegaysato shuhuuddii aad dhegaysato bacda dalika qaadigu ku dhawaaqo laakiin carabkan waxa uu ku dhawaaqo ikhwaani waxyaalaha muhlikaadka ah ayuu ka mid yahay waxyaalaha qofka halaaga ayuu ka mid yahay qofka kelimad buu ku hadlayaa laa yulqii lahu calaa baalin yahwi biha ilaa naari jahannam wuu iskaga hadlayaa waxay ku leeyihin soomaalidu waliba anaga waa isku ammaanaa hebel af buu wuxuu ku hadlaa afkiisa wuxuu soo qabto sheega waa halis wey yani afkaada wuxuu soo qabto aada sheegto waxaa weeyaan yani ma dadkaad caynaysaa ma qofkaad wax ka sheegaysaa ma cerdigiisaa wax ka sheegaysaa ikhwaani annagaa isugu filan dhibaato qof walba naftiisa ugu filan dhibaato caabna naftiisa ugu filan marka dadka muslimiinta ahna inay naga nabad galaan ayaa muhim ah waxaa la rabaa marka qofka muslimka ah meel allaala meeshu fadhiiba dikriga ilahina ku dadaalo subxaana wa tacaala muxaadarada qeybta hore cinwaanka waxaan ugu talagalnay aafaadka uu leeyahay carabka inaan kaga sheekeyno oo ay ka mid tahay kiibada namiimada shahaadatu zuurka xumaatada uu leeyahay insha allahu tacaala hadduu ilaah yidhaahdana qeybta dambe hadduu ilaahay naf nagu gaarsiiyo habeen dambe waxaan ka sheekeyn doonaa cinwaankeeda oo la dhaho amsik calayka lisaanaka carabkaada hayso sida qofka muslimka carabkiisa uu haysanayo iyo meesha uu carabkiisa dhigayo iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisii iyo saxaabadii ridwaan ullaahi calayhim iyo dadkii salafka ahaay iyo wasaayaadkii dardaarankii aan ugu talagalnay iyo dadkii salafka aqwaashoodii insha allahu tacaala ayaan kusoo khatimi doonaa ma min qowmin yaquumuuna min majlisi laa yadkuruuna allaha fiihi ilaa aqaamuu can mathali jiifati ximaarin wa kana lahum xasra akhrajahu imaamu axmed iyo abu da-uud iyo wanisaa-i min xadiidi abi hurayra waxaa lagaa rabaa qof kasta oo muslime markaa meel fadhiisato inaad tiraahdo marka aad kacayso subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka wa atuubu ilayka maxaa loo leeyahay wixii meesha ka dhacay khaladkii ka dhacay dembigii ka dhacay xantii ka dhacday dhibaatadii afka ka dhacday zakaatulfitriga maxaa loo jeeday ikhwaani duhratan lisaa'imi wa tucmatan lilmasaakiin waxaa lagaa rabaa bini aadam baa tahay jawaarixdaadii afkaada toona ma xakamayn kartid wakhuliqa alinsaanu daciifan saasaan u dhib badan nahay bahalkaa yarkoo gaduudanna lama xakamayn karo aad buu u dhib badan yahay aad buu u dhib badan yahay waxaa isku kaaya diray qabaa-ilada loo kala saftay axzaabta loo kala saftay bal adigu sheeg reer filif waxaad ku dilayso reer beni fulan baad u dhalato waxaa lagu yihi maanta reer beni fulan baa ku duulay caawa ma seexanays habeenbarkii baa lagugu soo ka lahay lacag baad bixisay qaaraaneh in ree hebel la laayo caruurtoodii la laayo la barakiciyo dumarkii iyo masaakiintii la laayo carabkaada waxaa ugu dhaqaaqday inaad maaragtay iyo jawaarixdaadi ugu adeegto dhahda magaalada nada waa la qabso in ree hebel ka kicinaa tacasubka dadka muslimiintiina kaa nabad galaan xadiiska abu da-uudka soo akrinay yaa macshara man aamana bilisaanihi walam yufdi iimaanu ilaa qalbihi dadka muslimiinta eh si jamaacatan iyo axzaaban xataa aadan u dacnin khayr aada u sheegto wixii wanaagga maaratay aad la qabato xumaatada maaratay aada ka reebto waxaa soo baxay waayadan dambe waad ogtihiin adaaweyna waan ifinay waxayna ka mid tahay culumta muslimiinta ay bartaan waana qeyb ka mid a diinta qofka muslimka ah jarxiga tacdiilka laakiin ikhwaani waxaa rabaa jarxiga tacdiilka inaan u adeegsano meesha uu dego in la dhigijo laakiin qof aana waxba ka aqoonin jarxigiina aan garanayn waxuu yahay tacdiilkiina wuxuu yahay aan garanayn baa wuxuu leeyahay sheekh fulan waa mubtadic sheekh fulan waxaa la darsi ha ka akrinna sheekh fulan waxaa la yahay hoos fadhiisanna masaajidkaas waxaa la yahay la aadin subxaana allah yacni qofkii muslimka ahay cirdigiisii
iyo nasabkiisii iyo jawaarixdiisii intiina oonad geli maayaan waxa sabab u ahna waa nafteena daciifka weeyaan iyo afkeena waay marka intaas insha allahu tacaala caaway wixii aan asiibeyna waa fadli ilaahay subxaanahu watacaala iyo ilaahay subxaanahu watacaala inuu waafajiyey wixii khalad aan geysanin ikhwaani waa nafteyda iyo gaabinteyda walastu ahlan fi hada almawduuc وأختتم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين